ma doonaysaa inaad si dhab ah ugu qorshaysatid sanadkan 2018 haddii ay jawaabtaadu haa tahay haddaba hore u soo qaado qalin iyo warqad ayna keen آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. السلام عليكم waad ku mahadsan tahay daawashada videogan ku soo dhawow nolol cusub magacaygu waa Yuusuf Sakeen marka hore aad ayaan kuugu xiisay waxaan u maleynayaa adigana sidoo kale inaad i xiistay soo sidaas ma ahan run ahaantii hawshan aan sameeyo waxaan ku sameeyaa keligayga markaan mashquulo waxaan ku qasbanahay inaan idinka soo daaho anigoon midaasi ugu talagelin ama xitaa aanan jeclayn waan jeclahay inaan mar walba video fikrado idin la qaybsado balse noloshu adiga waad ogtahay qofkeena uu iska mashquul badan yahay wuu mashquulayaa gaar ahaan qofka marka uu keligiisa wax sameynayo videoda u jeedin waa keligayga anigu baa duuba anigu baa editing ku sameeya oo farsamada sameeya wax walba kaamirada wax walba waa keligayga oo maadaama sidaas tahay waa inaan u helaa waqti mar walba Soomahan intaas waxa ay sii dheer hadana imtixaano aan ku jiro aan diyaarinayo marka ha la iga raali noqdo dhamaan inta ay soo weydiisay maxaa kugu dhacayo ma soo noqonaysid aw videodaadii dhamaan waxaan leeyahay iga raali noqda ku talagal marnaba ma ahan aniga ayaa idinka jecel inaan maalin walba video idin la wadaago mid labaad waxay tahay waxaan ku kalsoonahay inaad soo qaadatay qalin iyo warqad sidaas ma aan waa sidaas maanta waxaynu u qorsheysanaynaa sanadkan cusub aynu bilownay sanadka 2018 waxaynu si dhab ah u qorsheynaa sanadkan si aynu uga dhigno sanadkan anaga sanadkeena si aad sanadkan u sameyn lahayd wax walba aad doonaysid si aad sanadkan uga dhabayn lahayd ahdaaftaada oo dhan hadaba haddii aad mashquulsan tahay fadlan iska dami videogan ku soo noqo markaad mashquulka ka baxdid waayo howlo ayaan sameynaynaa su'aalo ayaan ku weydiin doonaa waxaan ka rabaa inaad wax qortid Soomahan arrintu ciyaar ma ahan arrintu waa dhab haddii aad si dhab ah u doonaysid inaad sanadkan uusan noqonin si sanadkii soo dhaafay hadaba waa inaad si serious ah oo dhab ah u fadhiisataa oo soo qaadataa qalin iyo warqad oona si dhab ah uga jawaabtaa su'aalahan ku weydiin doono hadaba sidaad uga dhigi kartaa sanadkan adiga sanadkaaga marka hore waxaanu ku bilaabaynaa in aynu dib u jalacno sanadkii hore sanadkii 2017 midkaas ayaynu dib u fiirinaynaa waayo si aynu u samaysano sanad cusub oo wax soo saar leh oo qorshaheena wax walba uga dhabayno waa inaynu marka hore horta fiirinaa sanadkii la soo dhaafay Soomahan sanadkii la soo dhaafay ayaan dib u fiirinaynaa hadaba markaad fiirisid dib u fiir sanadkaagii hore maxaa kuu soo baxaya isweydii marka su'aalahan sanadkii la soo dhaafay maxaan ka dhabeeyay ahdaafteedii qorshooyinkeedii maxaa iga dhawow maxaanan ka dhabaynin waa su'aal kale oo muhiim ah maxaan ka dhabeeyay maxaanan ka dhabaynin okay haddii aanan ka dhabaynin sabab aan uga dhaweyn waayay ahdaafteeda qorshooyinkii sanadkii hore aan samaystay sabab aan uga dhaweyn waayay maxay tahay maxaa i diiday maxaa iga celiyay maxaa iga hortaagnaa waa inaan u helaa jawaab su'aalahan oo dhan markaan sidaas sameeyo kadib waxaan kala soo baxayaa sanadkii la soo dhaafay 5 shay ama 5 waxyaabood oo aan ku guuleystay firi waxaanu doonaynaa inaynu ku bilowno sanadkan niyad wanaagsan dabaaldeg inaynu ku bilowno hadaba sanadkii la soo dhaafay ka fiiri 5 shay oo aad ku guuleysatay 2 shay 3 shay 4 shay oo aad ku guuleysatay raadi maxay waxyaabahaasi guulo aad gaartay imtixaan aad ku baastay saaxiibo wanaagsan oo aad samaysatay
wax walba wax akhriska aad ku guuleysatay waxay ahaadaanba 5 shay ama 3 shay ama 4 shay oo aad ku guuleysay sanadkii la soo dhaafay meel ku qoro intaas waa dabaaldegaaga waxa u dabaaldegaysid ma sameeyna intaas hadaba hadda waxaynu si gudaha ayaan galaynaa waxaynu fiirinaynaa 5 qaybood oo kamid ah qaybaha ugu muhiimsan ee nolosheena fiiri nolosheena waxaa jira 5 meelood oo aan u arko inay yihiin 5 shay ugu muhiimsan ee nolosheena 5taas waa kow cibaadadaada xiriirka ka dhaxeeya qofkeena asaga iyo Alle subhanahu wa ta'ala waa muhiim waa qaybta ugu muhiimsan samaahan hadaba dhinacaas waa kow meel ku qoro cibaadadaada midda labaad waxaad meel ku qorataa caafimaadkaaga midda saddexaad waxaad meel ku qorataa jaceylkaaga midda afaraad waxaad meel ku qorataa shaqadaada midda shanaad waxaad meel ku qorataa horumarkaaga hadda soo ma jeedid hadaba waxaynu doonaynaa 5tan qaybood ee nolosheena kamid ah ee ah meelaha ugu muhiimsan ee nolosheena waxyaabaha inooga dhowey sanadkii la soo dhaafay iyo sidaan hadda ugu qorsheysanayno sanadkan hadaba aynu ku bilowno cibaadadeena sanadkii la soo dhaafay sidoo ahaa xiriirka aniga iyo Alle subhanahu wa ta'ala ma wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan ma wuxuu ahaa mid dhexdhexaad ah ma wuxuu ahaa mid aan wanaagsanayn waxaan sameynay waxyaabo badan oo Alle subhanahu wa ta'ala iga celiyay miyaan in badan tukanay salaadeeda ahayd sookayga suu ahaa cibaadadiisa ahayd haddii ay jiraan meelo aan ka gaabiyay sideen hadda u horumarin karaa si daacadnimo uga jawaab su'aalahan waayo adiga ay kugu saabsan yihiin hadda nafsadaada ayaad la xisaabtamaysaa nafsadaada ayaad qorshe u sameynaysaa hadaba waa inaad honest ahaataa daacadnimo waa inaad ku bilowdaa wax walba warqad ku qoro adiga keligaaga ogaanaya qof kale ma aha inaad tustid waa adiga bas hadaba cibaadadeeda aan fiirinayaa cibaadadeeda sida markaan u fiiriyo xiriirka aniga Alle subhanahu wa ta'ala markaan saan u fiiriyo haddana waxaan u gudbayaa midda labaad caafimaadkayga caafimaadkayga siduu yahay qorshooyinkii aan u dejiyay sanadkii hore caafimaadkayga in inta leeg ayaan ku guuleystay in inta leeg ayaanan ku guuleysaneyn maxaa iga dhow maxaanan ku guuleysan caafimaadkayga siduu yahay mayuu ka soo darayaa mise wax badan ayaan sameeyay oo ku saabsan dhinaca caafimaadkayga dhinaca jirkayga exercise miyaan sameeyaa mar walba miyaan cunaa cunto caafimaad leh mise wax walba ayaan iska cunaa sokorta iyo saliidda waxyaabahaasi caafimaadkaaga waa muhiim waxaad ku soconaysid Soomaaliya qofkana hadduusan caafimaad qabin suu wax ku sameynaya suu ahdaaftiisa ku gaaraya suu noloshiisa ku horumarinaya caafimaadkaaga maxaa kaaga dhowey sanadkii hore maxaana kaaga dhaboobin maxay yihiin meelaha aad ka gaabisay caafimaadkaaga hoosta ka xariiq midda saddexaad waxay tahay waxaan fiirinayaa jaceylkayga sanadkii la soo dhaafay suu ahaa xiriirkaaga dadka alla leedahay xiriirka adiga iyo waalidkaaga aabay hooyo xiriirka adiga walaalahaaga xiriirka adiga caruurtaada xaaskaaga ninkaaga suu ahaa hadduusan ficnayn maxaa sabab u ah waa inuu imaan doonaa sanadkan sida u qorsheyn lahayn balse hadda waa inaad isweydiisaa su'aalahaas midda afaraad waxay tahay shaqadeeda see tahay shaqada waxaan ula jeedaa shaqada caadiga ah in qofkeena uu shaqaynayo ama shaqadaada adiga haddii aad tahay arday shaqadaada waxay tahay waxbarashada hawsha aad sameynaysid waa shaqadaada haddaba haddii aad shaqaynaysid shaqadaas ay tahay horumar intee leeg ayaa ka gaartay muxuu yahay shayga ugu wanaagsan ee aad samaysay sanadkii la soo dhaafay ee shaqadaada ku saabsan haddii arday tahay waxbarashadaas ay waayo midaas ayaa shaqadaada ah guulo intee leeg ayaad ka gaartay waxbarashadaada maxaa samaysay oo aada u muhiimsanaa sanadkii la soo dhaafay oo ku aadan waxbarashadaada waa arrin muhiim ah oo u baahan inaad isweydiisid midda shanaad waxaad isweydiinaysaa sidoo kale horumarkaaga adiga nafsadaada suu yahay waxaan soo korsay sanadkii la soo dhaafay aniga igu saabsan horumarkayga xirfado cusub miyaan bartay waa dhinaca horumarkaaga adiga kugu saabsan
hadda waxaynu soo gaarnay sidii aynu sanadkan ugu qorshaysan lahayn. hadda maxaynu sameynaynaa? waxaynu fiirinaynaa 5tii qaybood ee ugu muhiimsaneed ee nolosheena. waxaynu ku bilaabaynaa cibaadadeena. hadda waxaan leeyahay maxay yihiin waxyaabaha aan doonayo inaan sameeyo si aan ugu horumariyo cibaadadeyda. waa sidaas. hadday markaynu muraajaco ku sameynaynay sanadkii hore oo aynu fiirinay dhinaca cibaadadeena, waxaa noo soo baxaya meelo Soomaan, meelo aynu ka gaabinay. haddaba sanadkan waxaan doonayaa inaan ku horumariyo meelahaas, inaan ku wanaajiyo meelaha aan ka gaabiyey. Soomaan, haddaba maxay yihiin waxyaabaha ay tahay inaan sameeyo si aan u horumariyo, u wanaajiyo cibaadadeyda? kadibna waxaan qoranayaa 5 ahdaaf oo ugu muhiimsan oo ku saabsan dhinaca cibaadadeyda. 5 ahdaaf ayaan qoranayaa. 1 2 3 4 5. 5tan hadaf waa 5ta hadaf ee ugu muhiimsan ee ku saabsan dhinaca cibaadadeyda. 1 waxaan hadafkeyga koowaad wuxuu yahay inaan salaad walba aan ku tukado jamacada. haddii aad gabar tahay, inaan salaad walba aan tukado waqtigeeda. inaan maalin walba waqtigaas inaan ka akhriyo qur-aanka qaybtaas iyo qaybtaas. 5 hadaf sameyso oo cibaadadooda ku saabsan. soo ma jeedid? 5 hadaf sameyso oo meel ku qoro. 5taas hadaf muhiimka ku ah ee ku aadan dhinaca cibaadadaada. qaybta labaad aan u gudbaya waxayna tahay caafimaadkayga. okay, waxaan leeyahay iyaduna maxay yihiin waxyaabaha aan doonayo inaan ku horumariyo caafimaadkayga. waa inuu ka duwanaadaa sanadkii hore caafimaadkayga markaan soo maahan. haddaba maxay yihiin waxyaabaha aan doonayo inaan ku horumariyo caafimaadkayga? sidoo kale waxaan sameysanayaa 5 hadaf oo ugu muhiimsan. 5ta hadaf ee ugu muhiimsan ayaan sameysanayaa. 5tan waxay ku saabsan yihiin ayagana sidoo kale sidii aan ku horumarin lahaa caafimaadkayga. 1 inaan cunto fiican cuno. hadafkayga koowaad waxay tahay inaan cuno cunto caafimaad leh, inaan iska ilaaliyo sokorta badan, inaan iska ilaaliyo waxyaabaha caafimaadkayga wax u dhibaya. 2 inaan maalin walba 30 daqiiqo ordo oo aan exercise sameeyo, inaan jirkayga ka warhayo, mar walba ilaaliyo caafimaadkayga. 5 hadaf oo caafimaadkaaga ku saabsan sidoo kale meel ku qoro. waxaan usoo degaynaa jaceylka. waxaan leeyahay sidoo kale maxaan doonayaa inaan jaceylkayga ku horumariyo. siduu yahay xiriirka adiga dadka kale? soo maahan. xiriirka adiga iyo nafsadaada siduu yahay? nafsadaada ma jeceshahay? haddii ay jiraan waxyaabo ii soo baxay oo ku saabsan in nafsadeeda aniga aan jeclay, in nafsadeedaba aan nacbahay, ama nafsadeeda aan u arko inaysan waxba mudnayn, inay guul gaari karin, inay wax qabsan karin, hadda waxaan leeyahay may. waxaan hadafkeyga ka dhiganayaa inaan nafsadeeda jeclaado, inaan nafsadeeda tuso inay wax walba ay noqon karto, ahdaafteeda inay ka dhabeyn karto, wax walba aan doonayo inaan gaari karo, inaan noqon karo qof kasto aniga aan doonayo, inaysan dadka kale waxba iga duwaneen. 5 hadaf ayaan sameysanaya oo xiriirkayga ku saabsan. sidoo kale xiriirka aniga dadka kale naga dhexeeya muxuu yahay, suu yahay? waxaan u sameysanayaa hadaf asagana ku saabsan xiriirka aniga iyo caruurteyda, aniga xaaskayga, aniga dadka kale, saaxiibadeyda, qoyskaaga, intaasoo dhan. 5 hadaf ayaan sameysanayaa sidoo kale ku saabsan dhinaca jaceylka. kadibna waxaan isweydiinayaa sideen ku gaari karaa ahdaaftaas aan dejistay. waa muhiim su-aashaasi inaad mar walba isweydiisid. hadafka ku saabsan cibaadada, sideen ku gaari karaa ahdaaftaasi? sideen uga dhabeyn karaa ahdaafta ku saabsan 5ta hadaf kale ee ku saabsan caafimaadka? sideen ku gaari karaa hadafkaasi? maxay tahay inaan sameeyo si aan ahdaaftaasi u gaaro? waa muhiim soo maha. waa inaad ogaataa jawaabtaas, waa inaad heshaa maxay tahay si aan caafimaadkayga dhinaca ahdaafteeda ku saabsan dhinaca caafimaadka si aan u gaaro. maxay tahay inaan sameeyo si aan u gaaro ahdaafteeda ku saabsan dhinaca jaceylka? maxay tahay inaan sameeyo? sidoo kale meel ku qoro. sidoo kale hadda waxaynu u degaynaa qaybta 4aad, waxayna tahay shaqada ama waxbarashadaada. adiga shaqadaada waxay tahay arday, haddii aad tahay shaqadaada waxbarasho soo maahan. haddaba maxay tahay inaan sameeyo sanadkan? waxyaabaha ay tahay inaan sameeyo si aan u wanaajiyo ama u horumariyo shaqadeyda ama u horumariyo waxbarashadeyda. 5 hadaf ayaan qoranayaa sidoo kale ku saabsan waxbarashadeeda ama shaqadeeda ku saabsan. waxaan leeyahay haddana maxay tahay inaan sameeyo si aan u gaaro ahdaaftaasi ama uga dhabeeyo ahdaaftaasi? laazim waa inaad ogaato waxaa sameysay. inaan wax badan akhriyo, inaan wax badan kororsado, inaan duruusteyda xaadiro, inaan jaamacadda iskuulka mar walba tago, inaan noqdo arday
dadaal badan Soomaan sidoo kale shaqadeeda inaan ka warhayo mar walba aan shaqadeeda aan tago aan noqonin qof lazy oo waqti dambe oo soo daaha mise waqti loogu talagalay shaqada u qabta si looga baahna waa inaan ahdaaf u sameeyaa 5 hadaf u sameeyaa sidoo kale shaqadeeda waa inaan iraahdaa oo aan isweydiiyo iraahdaa maxay tahay si aan u gaaro ahdaaftaasi inaan sameeyo waxaynu nimid hadda qaybtii 5aad waxayna tahay horumarkaaga qaybtan waa adiga qaybtaada khaaska ku ahayd waa qaybtaada dhisida nafsadaada hadaba maxay tahay inaan sameeyo si aan nafsadeeda u horumariyo sanadkan maxay tahay inaan sameeyo maxaa laga rabaa inaan sameeyo sanadkan si nafsada u horumarisid waa inaan ka jawaabo su'aashaasi Soomaan waxaas 5 hadaf sameeyso ayadana 5 hadaf oo ku saabsan horumarkaaga sida nafsadaada inaad maalin walba wax akhrisid ugu yaraan nus saac mise hal saac inaad dhageysto fiidiyoyada muhiimka sida kuwan oo kale nafsadeeda horumarinaya inaan wax cusub barto maalin walba inaan qaato koorso inaan barto luqad cusub inaan hadda waxaan doonayaa inaan luqad cusub barto waa inaan eryaal badan inaan barto inaan mar walba dhageysto inaan mar walba ku hadlo isku dayo inaan ku hadlo hadaba waxaan sameysanayaa sidoo kale ahdaaf 5 hadaf oo ugu muhiimsan oo ku saabsan dhinaca horumarkayga dhinaca dhisideeda nafsadeeda sidaan waxaad ugu qorsheysatay sanadkaaga oo dhan 5 qaybood oo ugu muhiimsan noloshaaduna waa intaas oo kaliya inta hadii aad meel saartid oona aad ka dhaweysid ahdaaftan sida hadda u sheegnay aad u qoratid waxaan ku ballan qaadayaa oona u raacdid inaad sanadkan ka dhigi doontid adiga sanadkaaga hadaba waxaanu soo gaarnay qayb aad muhiim ah waxayna tahay si aad ahdaaftan oo dhan aad u gaartid waxaad u baahan tahay inaad sawiratid ahdaaftan inaad daawatid inaad ka soo qaadid sidii adiga oo ku nool ahdaafta habeen walba intaadan seexanin ka hor maskaxdaada ku sawiro hadaftaada maskaxdaada ku sawiro ahdaaftaada oo daawo ku noolow maalin walbana warqadaada la soo bax warqada hadda aad qoratay la soo bax waad habeyn kartaa warqadaasi waxa ka bedeli kartaa waxa ku dari kartaa dhib ma lahan balse muhiimadu waxay tahay inaad mar walba daawatid maskaxdaada ku daawo aqligaaga hoose ku daawo mar walba ku programmee mar walba markaad fiirisid sida adigoo ku nool ahdaaftaada dhinaca caafimaadkaaga dhinaca cibaadadeeda dhinaca jaceylkayga dhinaca horumarkayga dhinaca shaqadeeda ahdaaftii 5 ahdaaf aan u dejistay mar walba waan daawanayaa sida anigoo ku nool daawasho kale ma ahan ficilna waan la imaanayaa maalin walba wax ayaan ka sameeynayaa maalin walba waxa isku dayaa sida uu dhawaan la ahdaaftaasi mar walbana waan is xisaabinayaa waan is weydiinayaa maxaan ka dhaweeyay maanta maxaan sameeyay dhinaca ahdaafteedii maanta ma orday exercise ma sameeyay wax cusub ma bartay maxaan sameeyay mar walba dhinaca ahdaafteeda waan is weydiinayaa maalin walba maalinta dhamaadkeeda ayaan fadhiisanayaa waxaan la soo baxayaa warqadeeda ahdaafteeda ayaan dib u fiirinayaa maxaan sameeyay maxaanan sameynin sabab aan u sameyn waayay si aan berito haddana aan ugu dhicin isla khaladkii oo aan u sameeyo soo ma jeedid qaabkan u samee daawo isweydii isla xisaabtan sidaan oo dhan markaa ku samaysid ficil la imow mar walba u soco dhinaca hadafkaaga sidaan markaad ku socotid waxaad damaano qaaday guushaada ugu dambeystii mid ogow ma jiraan wax isbedelaya adigoo aanan marka hore isbedelin haddii aad ka heshay videogan ku qabo like la wadaag saaxiibadaada sidoo kale haddii aad doonaysid inaad mar walba heshid muuqaalo midkan oo kale ah ku qabo subscribe weligaaga ha hilmaamin mar walba ku nolow nolol farxad leh nolol jacayl leh nolol cusub aad ayaad u mahadsantahay افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي
نصنع المستحيل.